ugu dambeyn waxaan soo gaarnay xalqadii ugu dambeeyay animeygii seefta lacnada ahayd. Haddaba xalqada ugu dambaysa waxay ku bilaabaysaa gabadhaas lagu sameeyay baaritaan ama gabadha waa la daweynaya oo cudurada sanado badan u jiiftay ayaa laga daweynayaa. Ugu dambeyn gabadha soo saar kacdaa waxaana la hadashay gabadha hogaamiye waxay ku tiraahdaa waxaan ku rajaynayaa doonaa inaad nolol fiican ku noolaan doontid. Dhanka wiilkii yaraa kale timaha jaalaha lahaa waxa la nacay sano soo caafimaada oo seefta lacnada ah soo effect gareysay ama saameyn ku yeelatay oo ka soo caafimaada. Wiilkii soo iska fadhiyay meeshii sariirtii waxay matay gabadhii markii dhow soo bogsanaysay waxay ku tiraahdaa magacaygu waa Ninia. Masoo ku tiraahdaa Nikia waan ku garanayaa. Masoo ku tiraahdaa Nikia ma magacayga waa Nikia Esperano anu waxaan ahay kakaaliyada qaaska ah ama gabadha ku shaqeynaysa haddana caafimaadka wax iga sheeg isku dhaca caafimaad qaba laakiin waxaan raadinay gabadha yaqaan Nikia taasoo ahay gabadh geer faantayda hore. Masaaga wiilka gabadha ku tiraahdaa waxa ku soo weerartay seefta lacnada ahayd waxaad u baahan tahay inaad xoogaa maskax yar degsanaato oo aad qalbiga qawoodo kadib gabadha xiblan laabta gelisay wiilkii oo xayga qalbigu yar dejiso si yar qawooda kale wiilkii Marcos wiilkii yara kale waxay soo aadeen dhanka magaalada ama waxay rabeen inay yimaadaan gabadha company ka shaqeynaysa shirkadeeda. Markaas Marcos wuxuu raadin u dhownahay kadib Marcos wuxuu ka sheekay sheekadaas ahayd in ninkii seef lacnadaysnaa ee wiilkii markii uu dagaalamayay uu soo laabtay walaalihii yimaadeen tuuladiisii oo dib la joogaan aabihii ama ninkii soo karsaday. Dhanka kale soo laabay madrasadii ama iskuulkii waxay mad wiilkii yara waxaan bilaabay ardayda English kula hadlo ku raahdo kalmadaha English ga xifta xilbari markii la gaaro ardayda ma taxna ku raahdan ma taqaan English ma soo kala English kama aqaani kumana noolan shaba meel ka baxsan ee iska aqaana kadib wiilku wax bilaabay xilbari dib soo baxo waxaan arkay saddex nin mid kamid ah lugta u dhiga kadib wiilku yar turanto ma soo kala seeleedahay ma soo bilaabay wiilkiina foodeen ku raahdan af English wax ku tiraahdaa sayaan igara lahaw af English ku dhe ma soo wiilku wax ku raahdaa I'm sorry wala ku raahdaa af English markaas ay raadaan wiilka lacagna ka barbaar kadib lacag bay soo saaraan masawini mid ku faafay lacagtii wax ka qaatay gabadh yare masa gabadh ku raayay adigu iska lacagta sagabdho qelo wax tala macna soo gurmo kana ardaydo yimaada kadina labadii way xishoodaan meeshii iskaga dhaqaaqaan kadib markii la gaaro xilbareegii wiilkii raayay wuxuu ku raahdaa waan kaaga mahadcelinaysaa idii ibadbaysay maanta noloshaydi oo lacagtii igu badbaashay dhanka wiilkii Marcos wax soo gaarnay gabadhii company-geedii gabadha waxay taqasus ku leedahay in qofkii seefta lacnadiisa ama lacnada ay jidhkiisa gashay oo ay control ama ay ka eegtay magaaladan kadib waxa wiilku Marcos wax soo xasuusiyaa yaraanteedii oo ahayd markii uu aabaheedii iyadu qisadii dhex martay wuxuu ku raahdaa aabaha hadda wuxuu noqday buusaam waa qof markuu lacnadu fuusho wuxuu ku raahdaa qofkii ka dambeeyay hooyada dhimatana isaga ayay ahaa oo isaga ayaa dilay kadib gabadhu waxay soo aaday dhankii hogaamiyaasheeda waxayna ku sheegeen ku yiraahdaan ninkaas runbu ku sheegay oo hadda aabaha wuxuu noqday nin buusaama ama lacnadii ku jirtay jidhkiisa oo hadda dadka khatar ku ah waxaan loo baahan laga taxadaro. Markaas Marcos wuxuu baa wiilkii inuu ka sheekeeyo gabadhan yar iyo qisadeeda wuxuu arkaa seeftan wuxuu yiri waxay ahaan jirtay mid lacnadaysan oo lacnadu soo gashay jidhkeeda si adigu jidhkaaga ku jirto kale haddana waa mid la iska xakameyn karo. Dhanka kale gabadha yarkaysi ka Axmed saaxiibada waxay ku tiraahdaa hadda waxaan galnaa xiisadii sawirataanka kadib xiisadii sawirataanka la galaa markaas waxa soo galay wiilka taajirka macallinkana wuxuu yiraahdaa hadda waxaan la sawiray wiilka taajirka kadib wiilka taajirka wuxuu bilaabay sawiro gabadha yareed oo jeclaa. Dhanka kale waxaan arkaynaa ninkii gabadha yar hogaamiyaha dhalay kaasoo magaalada qalaas ka bilaaba gabadhii ogaatay inuu aabaheed yahay waxaan xagaa uga cadaato aabaheed inuu noqday buusaam ama mid lacnadaysan oo habaar ku jiro waxayna u soo dirtaa robotkaasi oo odayga soo weerar laakiin oday tababar buu ahaa oo robotisku ka wada adkaada oo gabadha uu ka wada markaas Marcos wuxuu soo xasuusaa gabadha markii ay yareyd iyo xaaladii ku soo kortay wuxuuna ku yiraahdaa aabaha markii ay yareyd biyaan ku ciyaartin jiray nolol fiican kugu soo koriyay laakiin noloshu ku qarnay nolol khatar ahayd oo wuxuu kula damacsan Marcos uu naatiin ka dhiga buusaam ama gabadh seefta lacnaysa jidhkeeda ku jirto fiirin hadda soo la dagaalamay robotiska xagaasna waxa kaaga cad inuu hadda ahayn buusaam laakiin rabin adduunka ka dhiga buusaam oo yahay mid sharlaawa oo adduunka shar ku faafinay kadib gabadha ku tiraahdo kugu fasaxay oo aabay soo dil kadib waxa soo xasuusta markuu aabeed ka tagay oo ku lahaa waxaan tagay rixla ama safar kadib gabadha soo dabacaysa aabeed ay kula istaaga wax ku sheegay inuu ku sheego igisoo goos ka dhageysanay gabadha waxa ku tiraahdaa aabba waxaan rajaynaa inaad noqon doonto qofkii saxda ah ee aqaanay kadib wiilkii Marcos iyo wiilkii kale gaay waxay maadameeshii kadib odayga bay la kulmaan odayguna wuxuu ku raahdaa waxa wadi jooji odaygu wuxuu ku raahdaa aniga cidii hor istaagi karta ma jirto waxaan doono ayaana sameyn karaa maasa Marcos waxanaaqa markaas ayagoo saas ku garab taagan ayaa wiilkii Marcos waxa dhaay inuu xakameyn kar waayo awoodiisa saxay la soo baxo wuxuu bilaabay inuu seefiisi mid kamid ah u isticmaalo dhanka kale ninkii kale wuxuu isku dayay inuu istiyaariyo
markaas wuxuu ku yidhi wiilkii gaay ballantan kuu qaaday aan qabo labadeen wada galnay soo xasuuso suku ballantaas waxay ahayd in labadooda mid kamid haddii maanta lasoo weeraro ama midkii yani loogu talagalay inuu hawshaas qabto uu midka kale faraha uga qaado oona dagaalka soo dhexgelin oo yani hawshiisa iska ama uu daawado ama yani marka la dili rabo uu weeraro ama yani uu ka difaaco masaa gaay waxaa lagu yidhaahdaa hadduu dib u laabana ninka la dagaalamaya kadibna wiilkii gaay waxaa dhacay inuu ku qasbaan dib u laabto kadib labadii nin baa isweerara markii labadii nin isweeraraan ayaa wiilkii Marcos wax ka kala jabtaa adawaadka ama silaax isticmaalayay markaas wiilkii Marcos waxa uu soo xasuustaa markuu tagay odaygan ay markii ugu horeysay isla kulmeen markaas odaygan wuxuu ahaa oday fiican oo seefaha ku yaqaana kadibna sheekadaas dheer kadib waxa dhacay wiilkii Marcos iyo odaygaas inay maalinta xagaas ku bartaan oo ay saaxiib noqdaan laakiin hadda waxay noqdeen laba qof cadow ah oo weerarkoodu uu sii balaadha dhanka kale gabadhu waxay bilowday inay wada dareento oo aabaheedu walwasho dhanka kale way rabtay in aabaheed la dilo wiilkii kale taajirka wixii maanta gabadhu wuxuu ku yiraahdaa hadiyada aan ku siinaya hadiyadaas waa in maanta aad ku sawiray oo sawirka uu qaaday hadaan kadib gabadhu mahad celisay in iska soo dhaqaaqda waxaan u yeeray ninkii shaqaalis wuxuu ku yiraahdaa mudan xilligan guriga gaarina gaadhay kadib wiilka aan soo laabanad labadii qof ee dagaalamay wiilkii Marcos iyo wiilkii kale ama odaygii kale waxa dhayn inay awooddu sii weynaato oo wiilkii Marcos uu ku qabto garaantii uu ku dagaalamay kadibna wiilkii Marcos isagoo rabo inuu dilo ayaa waxa hal mar yani qalbigiisa ay dhaqaaqo ama awoodda ay ka daciifta baashu ku wareejin odayga kala jabtaa odayga intaas ay ka faa'iideystaa wuxuu soo dhaqaaqay wiilka isagoo dili rooxay mid wiilkii gaay uu ka difaaca asoo wiilkii Marcos wuxuu ku dhahdaa horeydii uu laab kugu maxaa sameynaysaa laakiin wiilkii gaay hadalkaas yani waxa dhiga jala qoma siinayo dhan kale waxa arkaynaa ninkaas dadka sare ka daawanaya wuxuu yiraahdaa hawlo saarabay socdaan waana ku faraxsanayn wax walba sidoo socdaan kana dhanka kale gabadheena wali ay weli dareemsa oo ay daawanaysa maarakada meesha ka dhacaysa dhan kale wiilkii Marcos wiilkii gaay wax isku tagay ninkii kale maasa wiilkii gaay soo weeraraba oo inta ka faa'iideysan fursadan wiilkii Marcos uu yani iskaga kala jeedin awoodan oo dilir leh ayaa waxa soo yimaada ninkii aan arkaynay ee markii hore samada ka daawanay wuxuu ku yiraahdaa wax isku daytagaysan adoonkayga yar aniga dadka ticeliya dhan kale soo laabana qoyskii wiilka uu ku soo koray waa arkay laba qof oo lamaana labada qof waxay yiraahdaan ninkii aan soo korsanay ee awoodda weynaa waan laga dilay waxaana dilay wiilkan gaay oo ninkan maanta gurigiisa la noolahay ayaa dishay dhan kale wiilkii gabadh yarkiisa kiya waxay tabaysaa walaalkeed gaay wayna u xiistay waxna ku leedahay gaay waxa rajaynaa noloshaad ku nolol fiican ku nooshahay oo hadda dagaalay baleeyana ku jirin dhan kale wiilkii Marcos waxa la sheegay gabadh waxay ku tiraahdaa aabahay khatar ay noqday ee ka fogaada faldan oo nidil rabaay marsaga wiilkii wuxuu bilaabay inuu dhagtada ku siin hadalkeeda oo iska sii wato dhan kale wiilkii gaay waxa ku dhac kacada xamaasadii waxay bilaabeen soo weeraro laakiin wiilkii Marcos wala hadlo ku dhahdo isdeji laakiin waxa isdejitaanka aan wax kama diriso saagtiin xalqada ugu dambeysay saxaaba ee fan muuqaal kale saara oo ku macsalaamay animiga markaas wiilkii kale taajirka wuxuu imaaday dadka magaalada mid kamid ah ama yani wasiiradii wuxuu isku geeray wuxuu ku yiraahdaa dadka boosaanka wayna ka difaacna magaalada way khatar ay ku yihiin bilaadanka noloshooda dadkina way ku wafaqaan waxay bilaabay inuu saxabeeyaan dhan kale ninkii wuxuu bilaabay wiilkii gaay inuu soo weeraro oo dhulka ku tuuro wiilkii wuxuu noqday wiil awood laakiin isma dhibo mar laba ku soo laabtaa dhan kale wiilkii kale Marcos isagana uu isdhiibay oo yani dagaalka ayuu arkaya wax ka dhacayo oo wax uu sameeyay ma garanayo awood ma laha hadda laakiin kasoo awood yar xoog ka jirto uu soo weerar karo laakiin wiilkii gaay baa la kari laayahay oo hadda xamaasad ku kacsan tahay oo wuxuu leeyahay ama han dhinto ama dadka waan badbaadiyo labadaas waxba kama dhaxeeyaan kadib wiilkii kale taashirka dadka wuxuu isku dayay inuu sidii yani ku sii dhiirigeliyo in dadku taageeraan dadka dagaalamaya ee dadka buusan kala dagaalamaya markaas wiilkii gaay ugu dambe waxa dhayn inuu xoogaa ka soo raadkaado kala gabadha kiisii ka xaragta sawirka walaalkii gaay wayna ku faraxdaa markaas wiilkii gaay waxa lagu xukumaa yani wiilkii Marcos ay silaax isticmaalo ku xakameeyo wuxuu markuu kari waayay yani ku kari waayay istaag ayuu ku xakameeyaa markaas wiilkii gaay wuxuu isku dayay inuu isticmaalo awoodiisa seefta canisaaka awood badaysa wiilkii Marcosna xagaas ayuu ku dilaa oo wadnaha ayuu ka galiyaa seef wiilkii Marcosna xagaas ayuu ku geeriyoodaa sidoo kale waxa geeriyooda aabihii gabadha yar dhalay ee kibirka badnaa ee dagaalka badnaa iyo ninkii kale difaaci rabay xagaasna waxa dhayn laga adkaado gabigoogii ama dadkii buusaanka ahaa dadka ku faafinaya lacnadaha intaas oo saxaab noogu dhamaada saxaab animigu waan isku soo xiri doonaa oo xalqadan isku soo wada nabi doonaa saas ogaada maca salaama wa shuufuku fi anime jaaye